السلام عليكم. gurigan waa guri saddex qol jiif iyo fadhi oo location aad iyo aad u wanaagsan meel fiican ku yaalo dugsigii quraanka xadiiqadii masaajidkii maxaa la dhahaa isbitaalka farmashiyaha kulli wax kasta u dhow guri aad u fiican waayo oo xataa qorax dhinaca qoraxdu u jeeda qorax badan ay helaysa iftiin balkoonka waa kana okay dhulkana ma ahan waa guri kor u kacsan okay guri kor u kacsan waa kaas dadka badan ma jeclo host ma jeclo guriga waa kacsan yahay alxamdulilah saddex qol jiif way hadda meeshan waa fadhigi waa kan fadhi aad u weyn waasica okay qolka koowaad oo jiifka ahaa qolka jiif waa kan number 1 okay inta waxa ku taal musqushan waa la dabooli karaa qofkii rabo no problem waa la xiri karaa waxa ka wada western laga dhigi karaa toiletka lagu fariisana laga dhigi karaa jikadiina waa tana jika aad iyo aad u qurxoon waay ma sha Allah material fiican la isticmaalay oo qaali ah waa ujeedin okay balkoon labaad uu leeyahay laba balkoonka labaad waa kan balkoon aad u weyn waay L shape ah waa kaas xadiiqadiina waa taas parkigi masaajidkii meesha ciyaalku ciyaarayeen meesha lagu tukan lahaa masaajidkii dukaamadii kulli halkaasna waxa ku yaalo dhinacan dugsi quraan okay waa tara aad u weyn tahay ujeedin jidkaana waa shaaric ra'iis jidkii weynaa waay oo basaskii wax kulli wax kasta maraan okay location is aad u fiican yahay saddex qol jiif iyo fadhi laba musqulood jikadii balkoon laba balkoon okay dhamaystirna guriga waxaa noo hartay musqushii weyneed waatana wax kasta leedahay waa diyaar wajiga lagu dhaqanayo biyihii qubayskii waa ka showerkii toiletkii okay hadaan kasoo baxno waxaa qolkii labaad waa kan okay qolka labaad asagana maasha Allah oo balkoonku leeyahay asagana balkoon uu leeyahay iyo master bedroomki oo ayadana shower leh okay waa kana guriga marka laga soo baxno waa kana laba elevator uu leeyahay alxamdulillah guriga banaankiisana waa kana jidkan waa jidka weyn oo xaafadda maro wax kasta ku yaala meeshan dukaamadii maxaa la dhahaa iskoolkii masaajidkii basaskii maro oo magaalada meel kasoo geenayo marka location aad u fiican waaye dalacadna ma ahan waa meel oo waayeelka la keeni karo waa ujeedin jidka maasha Allah okay